waxyaabaha la yaabka ah ee dunida waxaa ka mid ah dad ayaa boqolaal kun oo doolar ku bixiyey marka ay dhintaan kadib in dib loo soo nooleeyo. maanta dadkani waxa ay dhex jiifaan iyaga oo kumanaana sanduuqyadani barafka ah ee kuu muuqda. waxa ayna sugayaan maalinta dib ay u soo noolaan lahaayeen. saacad welibana waxaa dushoodii taagan shaqaale u tababaran hawshani. qofka aanan awoodin boqolaalka kun ee doolar shirkaddu waxay u samaysaa qiimo dhimis aad u badan. ama qofka haddii uu doono madaxiisii oo keliya ama maskaxda, midkii uu doono ayuu ka dhigan karaa mid dib loogu soo nooleeyo, si markaa madaxiisii dib uu ugu soo noolaado sida ay rumaysan yihiin rabood ama teknoloji jinka qaybihiisii kale inuu ku isticmaalo. arrintanina diinta islaamka marka loo fiiriyo waa fikir been oo khuraafaad ah, balse maadaama boqolaal qof ah ay iska diiwaangeliyeen lacagtuna ay wada shubeen, ayna rajaynayaan maalin uun sanduuqyada ay dhex jiifaan in laga soo saari doono dib ay u soo noolaan doonaan, sidee ayaa looga dhaadhiciyey dadkani lacagtana looga qaatay, weliba qaarkood iyaga oo aqoon-yahano iyo brofesaro ay ku jiraan? su'aalahani iyo kuwo lamida ayaa muuqaalkani ku arki doontaa. maraykanka iyo ruushka iyo guud ahaan dunida waxaa ku yaala 3 shirkadood oo ka shaqaysa dib u soo noolaynta dadkii dhintay. dunida aynu ku nool nahay maanta waxaa jiro kumanaan aragtiyo oo dadka ay ka rumaysan yihiin haddii la dhinta kadib maxaa dhici doona. dadka iimaanka leh ee muslimiinta marka laga reebo kuwa kale ee diimaha haysta xitaa ugu yaraan waxa ay rumaysan yihiin in ruuxdoodii dib alle uu u soo noolayn doono. balse dunida waxaa jiro dad shayddaanka uu duursaday wax diinahna aanan rumaysnayn oo rumaysan in tiknolojiyada jinka dib loogu soo noolayn karo. dadkani waxa ay rumaysan yihiin mustaqbalka dunida taariikhda 3,000 ilaa 4,000 dunida barwaaqo, goob wada tiknolojiya, wax walba iyadoo ay isbeddeleen meel casri ah oo aad u qurux badan in ay noqon doonto. kadibna haddii dadaalka sayniska iyo tiknolojiyada sida maanta haddii xoogga loo saaro, waxa ay rumaysan yihiin xilligaa in la gaari doono maalin un ay soo noolaadaan. qofka iimaanka leh waxyaabahani marka uu arkayo waxyaabo khuraafo oo aanan dhici karin, balse qofka haddii taajir uu yahay sidoo kalena wax diinahna uusan rumaysnayn, macquul lama aha tiknoloji la'aan in noloshani kadib in dib loo soo noolaan doono. sidaasi darteeda waxaa soo ifbaxay dhowr qarni maanta ka hor fikrado dib isku soo noolayna. fikirkani dib isku soo noolayntuna waxuu asalkiisii uu ka soo bilaawday muumyadii hore ee masaarida. qofka haddii uu dhinto si mustaqbalkuu u soo noolaado, waxa ay jirkiisu marin jireen si uusan u qurmin kimikaalis kala duwan. mashruucani dib isku soo noolaynta ee cryonics loo yaqaanana masaaridii kadib waxa uu ahaa fikir laga tagay oo aanan sax ahayn, maadaama boqolaal sano cidna dib aysan u soo noolaan. balse madaxweynihii hore ee maraykanka benjamin franklin oo ah ninka $100 ku sawiran ayaa waxaa ka mid ahaa fikradihiisu inuu rumaysnaa boqolaal sano kadib in dunida uu ku soo noqon doono uuna arki doono xaaladda iyo horumarka maraykanka uu gaari doono. balse geeridiisii ilaa iyo maanta waxaa laga joogaa 231 sano. ninkanina waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horey ee qarniyadii la soo dhaafay u ololeeyay fikirka dib isku soo noolaynta. maanta oo dunida casriga ay tahayna waxaa jiro boqolaal qofood kuwaas oo rumaysan in dib ay u soo noolaan doonaan. maalin adduunka oo dhan wax walba oo maanta jiro isbedeli doonaan. nidaamka shirkaddan ee u shaqayso waxaa ka mid ah dadka marka ay lacagta shubaan, shirkaddu waxa ay siisaa jijimo garanti ah oo qofka haddii uu dhinto sanduuqyadaasi jirkiisii in lagu qaboojin doono ah. qof waliba ee jijimahani watana waxa uu sugayaa mustaqbalka in dib uu u soo noqon doono. qof walba ee shirkaddani iska diiwaangeliyey noloshiisii si dhow ayay shirkadda ula socotaa. qofka marka uu dhintaba si degdeg ah waxaa qasab ku ah shirkadda in jirkiisii la soo gaarsiiyo, waayo waxa ay rumaysan yihiin qofka marka uu dhinto
saacadaha ugu horeeya haddii jirkiisii dhiigga oo dhan laga miiro in dib uu u soo noolaan doono. daliilka arrintan ay u daliishanayaan oo dadka oo dhan ay ku wada qanciyeen inta aanan u gudagelin ka hor, shirkaddu marka uu qofku iska diiwaangeliyo waxa ay siisaa tababar nafsiya taasoo qofka lagu tababarayo mustaqbalka maalinta uu soo noolaado sida adduunku isku beddeli doono iyo waxyaabaha qofka loogaga baahan yahay xilligaa inuu sameeyo. macallinka tababaraha brojektigani isaga laftirkiisu waa qof aanan ogayn sida mustaqbalka dunida ay isku beddeli doonto. waxa uuna sidaa tababarahani uu lacag uu ku qaadanaya in dadka uu wax ka fahamsiin doono mustaqbalka dunida sida ay noqon doonto iyo xilligaa sida uu qofku dadka ula dhaqmi lahaa. si kooban tababarkani waxaa la odhan karaa waa wax khuraafaad oo beena oo dadku ay isugu sheekaynayaan. sababta ay shirkaddu dadka tababaray u siisana waxaa ka mid ah in dadka badankoodii stress badan uu ku hayo marka ay dunida dib ay ugu soo noqdaan dadka xilligaa nool sida ay isku fahmi doonaan. sidoo kale yay waqti la qaadan doonaan maadaama dadka badankoodii xilligaa aysan gaari doonin. shirkadduna broblemkani waxa ay ku xalisay qofka qoyskiisii iyo saaxiibadiisii xitaa shaqaalayaashiisii ama xitaa haddii xayawaano uu haysto sida eygiisii iyo waxyaabaha la midkaa oo dhan ka qaraabo ahaan ama dadka ugu dhowdhow qofka in lacagtoodii oo dhan inuu ka wada bixiyo si mustaqbalka dadkaasi hal meel ay ugu wada noolaadaan. haddii qofka arrintani uu ku qancana, shirkaddu waxa ay sheegtay in qiimo dhimis aad u badan in loo samayn doono maadaama dadyow aad u badan oo ehelkiisii ah lacag uu ka bixin doono si mustaqbalka loo soo nooleeyo. qofka marka uu dhinto jirkiisii oo dhan waxaa laga miiraa dhiigga, intaa kadib waxa ay dhex dhigaan sanduuq qabow ah waxaana la sugaa ilaa qofka jirkiisii baraf dhagax oo kale uu ka noqonayo. intaa kadib barafka habab kale iyada oo loo marayo waxaa ugu dambayn qofka la dhigaa sanduuq aad weyn. sideediiba dadkani waxaa ka dhaadhacsan qofka haddii jirkiisii uu qurmo ama uu baaba'o in dib uusan u soo noolaan karin. xitaa masaaradii hore sababaha ugu waaweyn ee mumyay u samayn jireen waa in jirka uusan baabi'in ama uusan qurmin. qofkiise la dhalaaliyo waxa ay rumaysan yihiin maadaama jirkiisii uu qaboobay in mar kale unugyada jirkiisii actif ay noqon karaan. waxa ayna arrintani ku xoojinayaan sida ay sheegeen tijaabo rah iyo ay ku sameeyeen. ayaa isaga oo nool oo aanan dhiman ayaa waxaa laga miiray dhiigga jirkiisii. eegii ugu dambayn dhiigga jirkiisii marka laga qaaday sida wax dhinta oo kale ayuu noqday, wuu suuxay, miyanka ayaa ka tagay, kadibna eegii waa la qaboojiyey. teknikyadani ay sheegaan in ay marsiyaan dadka dhintay ayaa eygana ay marsiiyeen. kadibna eygii ayaa waxa ay ku soo celiyeen dhiiggiisii muddo 72 kadib. eygii waxaa la sheegay in dib uu u soo noolaaday, miirkiisuna in dib uu u soo noqday, laakiin eygu waa aanan dhimanin. inkastoo baaritaankani aanan la hubin, haddana waa sida rasmiga ah iyagu dadku ay ku qanciyaan. dadka mashruucani iska diiwaangeliyey ee lacagta bixiyey sidoo kalena dhintay maalin walba jirkoodii shaqaale ayaa dul taagan. shaqaalahanina heerkulka jawiga, kuleelka iyo qabowga ayuu u kala badbedelayaa. hadafka ama ujeedkuna waxa uu yahay maalin un inay soo noolaadaan. diinta islaamku waxa ay qabtaa noolo walba inuu dhiman doono, kadibna dhammaan noolayaasha maalin gaar ah oo maalinta xisaabta inay wada kulmi doonaan. noolo welibana si gaar ah ayaa loo xisaabin doonaa. xayawaanadu marka ay dib u soo noqdaan oo midkood midka kale loo kala gan qaado ayaa ugu dambayn waxa ay sidoo kale noqon doonaan kuwa cara ah, halka bani'aadamkuna wixii uu kasbaday inta ay la eg yihiin uu ku mutaysanayo ciqaab iyo abaalmarin. dhammaan diimuhuna sidaa ayay qabaan in mustaqbalka qasab ay tahay in dib loo soo noqon doono, balse arrintani maadaama iimaaniyaad ay tahay dadka aanan iimaanka lahayn, qabowga ayay u arkaan in laga soo dhex kici doono. ninkii ugu horeeyay ee barafka lagu qaboojiyey waxa uu ahaa nin loo yaqaanay James. ilaa maantana maalinta James uu soo kici doono ayay dhammaan dadka iska diiwaangeliyey mashruucani wada sugayaan. waxaase cajiib ah dadkani hamigoodii inuu yahay duni casri ah in dib ay u imaan doonaan. balse maxaa dhici doona haddii ay soo kacaan yowmun laa yanfac maalun walaa banuun maalin ay tahay, halka iyaguna
dunidii iyo barafkii ay ku tashanayeen iyo tababarka hadda loogu sheekeeyey ayna ku fakarayaan duni horumarsan inay imaan doonaan. mar walba ee dunida iyo dhaqamada bani'aadamka aad daraasayso waxaa kuu kordhayo aqoon, waayo aragnimo iyo iimaan aad u xoog badan.